waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo shaaciiba ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimka ee ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas marka intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu saari jiray ama container marka buu saari jiray ninkii maalqabeenka ahaa ee Australia ahaa ee Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka ee marka la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday isoo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday igu darbukay markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka wala cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ilaa yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday waa sana beero san dheero gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu yiri culimada idaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo banaanayn maxay shariicadu banaanaysa maxaas ii banaanayn uu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano hadaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo وانا حديث صحيح ونبي شيخ صلى الله عليه وسلم هو شيخ ويا بنكي وانت وسنا صاحبه حين وضع معاملون إلي هذه قاضي ويدي ما قاضيو وحكى انيغا وحكى حلال هذا ذيك انتو وانكو صار الديار ده لكن كان ما قاضيو دين تيدانا يسامحين انكو قاضو gabadhiisii baa markaa inantii uu dhalay baa fikirayso gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanada mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna jaaba waa diintiisa oo gulina naga daabuuri aaba raay baa ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygaan ka leeyahay waxa weeyaan baalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatayna qabatay xambarino waxay tiri ani arintaas maskaxdeeda ma galeysay war kala keen فكرت لكن مسلم كيف تلفق يسقب شطي ولا هذا الشيء وحيت البريت لنا كو اركان دونيا وايو وين انت ودق عين كاسي او دلي ويانا ما انت كنت يا ابيه لا صوت قال بل marka ku martay qaaday markay u timiday wuxuu marka islaantiisii uu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas uu soo gashay hoteelkii halka gabadhii fadhiisatay waxay tiri anu adigan kula ballamay ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu ruuxan kale waa xaaskaygii diintayda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula kaliyoobo limaada waan ku geeyaa adiga mahram baadita mahram imatid mahram babu baanta nabi maxamed baa yiri ninna naaga jaaniba inuu sala kaliyoobin illa mahramkayga la jooga mooyaane alayhi salatu wasalaam taana horta bacbi ku tir qalbigeedii diin baa ya meesha taale
waxay tiri su'aal baan ku weydiinayaa diintaada adiga waa maxay waa islaam yaad aaminsan tahay shay Allah baan aaminsanahay la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar ta'irka abuura dhuka abuura marka halkii fursad waxay u noqotay inuu ninkii gabadhu dacwada siiyo inay iyadii halkii ku islaamto inay hoteelkii ku noqoto inay hooyadeedii aabaheed ay ka dhaadhicisay diinta islaamka oo labadii waalid oo da'wa weyn ay ku qancaan inay diinta islaamka soo galaan hidaayada markaa yahay nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam wuxuu ku yidhi quraysh adeer anu kelmad baan la rabaa inay mar keliya ii yidhaahdaan hadday kelmadda ay yidhaahdaanna hee carab oo dhanna madax bay u noqonayaan cajab oo dhanna jizyaday ka qaadayaan kelmaddaasi waa maxay waa laa ilaaha ila allah abaa jahal baa sara kaco wuxuu yidhi ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina haada la shayun cujaab 360 ilaahoon caabudaynay ayaa baahidayadii dabooli kari le maxamed ma waxa uu leeyahay mid kaliya caabuda waan naga kiciye buuri meesha ilaahyadeena cibaadadoodana ha ku sabirne muraadka maxamed uu ka leeyahay diintiisan ku daynayo ka hadhaya ma ayna naga mariyo bay yidhaahdeen markay ka dareereen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagii adeerkii baa soo hadhay markaasuu abu talib ayaa yidhi adeer hadal xunba kumaad odhana waa sidee ma intaa bay ka didayaan markaasuu adeer adigu kelmadda mar ii dhagu yidhi qiyaamaha ku markhaati fure hal marun adigu ii dhagu yidhi kelmaddaas maalin kasta waa u bandhigaya adeerkii dacwadda sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yidhi adeerka abaa taalib baa xanuunsan oo jiifo oo dhacay markaa buu nabigu iskortaagay calayhi salaatu wassalaam kolkuu u soo galay abu taalib wuxuu arkay dhinaca waxaa ka fadhiyaba abu jahal yaa uga soo horreeyey abu jahal baa uga soo horreeyey siraac xaqa iyo baadilka waa isgarab socdaan la socdo markaa buu nabigu u dhawaaday adeerkii cammi adeer hee kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha han kuu markhaati fure oo han kuu shafeecad qaade hal marun kelmadda aniga maqashi uu ka yidhi laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah sal alla alay wasalam markaasuu eegay abu jahl buu eegay abaa jahl baa ku yidhi atarqabu can millati cabdilmualib biabaa taalib ma milladii cabdilmualib baad maanta ka weecanaysaa diintii abuyaasheen intood ka tagto diintan cusub ee maxamed uu la yimiday miyaad rumaynaysaa ood raacaysaa u aamusay haddana nebigaa soo erjeediyey sal alla alay slam adeer kelmaddaa mar labaad igu celi buu ka yidhi mar labaad haddana u aamusay haddana abu jahl baa soo jeediyey markii u dambaysay abu taalib wuxuu yidhi calaa millati cabdilmualib baan ku dhintay maxamed oo iska kaydaa buu ka yidhi إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذلك جعلت النبي قال له ما هذه كريس دلالة الدلالة hidaayaddaad adigu leedahay waxa weeyaan inaad dadka khayrkaad ugu yeedhid inaad kelmadda u bandhigtid inaad u nasteexaysid inaad u damqatid inaad diinta u sheegtid waa shaqadaada adiga weeyaan laakiin quluubtooda annaka hayna baa ilaahay leeyahay kaan doonna qalbigiisa annakaa nuurka iyo hidaayadda qalbigiisa gelinayna kaad jeclaato adigu ma hadaynaysid marka abu taalib oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkiiyana hidaayadda nasiib umuusan yeelin salmaan oo farisiina ilaahay waa soo hadeeyey abulahab oo nabi maxamed adeerkii la xamiyana hidaayadda nasiib umuu yeelan bilaal alxabashina ilaahay tabaaraka wa tacaala waa soo hadeeyey yahdi man yashaa kuu doona ilaahay isaga hadeeye
marka ilaahay asmaadiisa waxa kamid ah al-hadi hanuuniye الحافظ واسماء الهي الاليه سغاكو الالين سودو دونو كوغو الالين ماشو دونو كوغو الالين غورتو دونو كو الالين بلا اسباب بلا اسباب سغال كان مغع الهي النبي محمد يري مغعدا وناكسن الهي وليهي كو الله بريو باهيدين كو ديستبع علمدو ليهين سغال كان مغع به مغع والبا معنى غوني وحنبرسن يحي magac walba macno gooniyo ayuu xambaarsan yahay